والد صدح دقن آد بيقرح بدنيهن والدك يا أولادنا ويسكت اللالان مد وحويان صراضها قاركود إنها تسكو حرطان مالك تقول جوكتو مخرب أما عشاء إنها تسكو حرطان أما أوديكو تجيو أما ويلك وين تجيو مركل تكذنا أنت اللي صفر سليرة استغفر الله استغفر الله استغفر الله سبحان الله كدبنا والدك كوا يديركو هذا الدعية هيدا هذان هذي دونان يا الله give me candy إله النعناسي هيدا هذان لكن إنا تشوكتيسو runtii waxay ku yeelataa awlaada saameyn fog oo qurux badan dhaqanka labaad ee quruxda badan waxa weeyaan in WhatsApp group family kuleeyahay aabaha hooyada iyo caruurta kuwa taleefanka markaan ka wada WhatsApp group kaas una noqonin mid amar la isku siiyo oo laga argagaxo laakiin uu noqdo mid ay ku kaftamaan hooyada iyo aabaha iyo awlaadu mid waxyaabaha fanka la soo geliyo kullayba WhatsApp yada kale waxyaabo lagu qoslo waa la soo geliyaa laakiin kan inuu noqdo wax caruurtu ay ku qoslaan mararka qaarkood inaad soo geliso markay iyagu soo geliyaan ha ignore gareyn ku qosol adiguna calaamada laafka saar reerka way isku haysaa haddii xitaa aad kala fogtihiin arintaa joogtee midda saddexaad aabuhu markuu shaqaynayo ee laga yaabo inuu taraaga saaran yahay ama ma aragtay gobol kale ka shaqeynayo in uu joogteeyo FaceTime-ka inuu la sheekaysto caruurta inta badan isagoo arkaya inuu la sheekaysto uu yiraahdo FaceTime igu soo wac runtii waa arimaha u fiican way marka waxaan rabaa saddexda qodob insha Allah taala inaan isweydiino qodobada kale way badan yihiin laakiin waxa laga yaabaa dadka inaan suurtoobin in umrada la isu raaco cidda Ilaahay marka duruuf ahaan u saamaxo in umrada la isku raaco hal mar la wada tawaafo la wada cibaadaysto waxyaabo qurux badan weey marka saddexda qodob insha Allah taala yaan rabaa inaan idin la wadaago Ilaahina subhanahu wa ta'ala ha inoo wada fudaydiyo dhamaanteena kuwo laazima Ilaahay naga dhigo. Wassalaamu calaykum wa rahmatullah.